waxaan salaamayaa ardayda ka qayb gashay tababarkan iyo macallimiintoodii wax soo baray agaasimayaasha wasaaradda senator cabdisalaam dhabanacad dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaanta ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladdan qalinjibinta ah oo arday soo dhammaysatay waxbarasho la xiriirta brotokoolka ay halkan maanta fadhiyaan brotokoolku waa luqad ay ku wada hadlaan caalamkan aad looga hadlo marka madaxdu ay tagaan goobaha shirarka tagaan dadka shirarka imaanaya kala duwan weliba gaar ahaan meelaha shirarka waaweyn lagu qabto luqadda keliya isku yaqaanaan oo ay ku wada hadlaan waa brotokoolka haddii aadan luqaddaas aadan aqoonin waxaa imaanaya inaad la qabsan weyso ama aad la dhaqmi weyso mataqaanaa nidaamkii loo baahnaa inaad kala falgasho marka aad iyo aad ayay muhiim u tahay qaabka loo fadhiisanayo qaabka cuntada loo cunayo qaabka loo soconayo qaabka loo kala horumarayo waxaasoo dhan waa aas-aaska xiriirka dadweyne xiriirka caalamka haddii aad gefto amba aad qalado waddanka kale aad marti u tahay ama martida ku ah wuxuu u qaadanayaa inaad amba aad ama aadaan fahmin qiimaha uu leeyahay amba aad mataqaana meel ooga dhacday mararka qaarkood waxay abuurtaa caro mararka qaarkood waxay abuurtaa weliba dagaal oo yasid iyo waxbaa loo qaataa marka aad iyo aad ayay muhiim u tahay in brotokoolka uu yahay waxyaabaha aas-aaska u ah inta badan ay tahay annaga waxyaabaha aad nooga qaldamay dhowr nooc ayay nooga qaldameen waa maroo dee dadkii hore uga shaqayn jiray 30 sano gaab ah ayaa noogu jira oo aad moodid in dowladnimadeenna aanay korin caalamkan wax badan ay iska beddeleen sidoo kale waxaa jira dhaqankii waagi hore aan ku socon jirnay oo ahaa dee dhaqan oo dowlad centralized ah dowlad oo mataqaan unitary ah iyo nidaamka hadda haysano federaalka oo madaxdii ay farabadatay jagooyinkii ay farabateen welina aan la qeexin sida ay kala yihiin sida u kala fadhiisanayaan aanan weli la qeexin oo dhibaatooyin badan ay ka taagan yihiin ma wasiirka arrimaha gudaha hor fadhiisanaya mise maamul goboleedka madaxweynaha fadhiisanaya roolka intuu kaga leeyahay mataqaanaa agaasimaha ama guddoomiyaha baarlamaanka oo maamul goboleedka intuu kaga jiraa mataqaanaa haararkiga dowladda waa waxyaabaha weli aanan noo qeexnayn u baahan inaan qeexno si dowladnimadeena ay u noqoto dowladnimo ku dhisan nidaam qoran oo la yaqaano oo la fahmi karo oo aanay noqonin mataqaanaa xoogsi iyo sidee la kala ordanayaa marka holaas waa kole howlo noo yaalo waaye laakiin hawsha idinka maanta ladinta u baray waxay aad muhiim ugu tahay in xafiisyada dowladdu xitaa ay yeeshaan nidaam ay isku fahmi karaan waa ku faraxsanahay in wasaaraddu machadku uu aqbalay inuu ilaa 60 qofood oo ka socda wasaarada kala duwan ay tababarka ka qayb galaan taasi waxay saacidaysaa in wasaaraduhu xitaa dadka aad la joogtaan wasiirada aad la joogtaan amba xildhibaanada aad la joogtaan amba xafiisyada waaweyn ee aad joogtaan madaxweynaha iyo prime ministerkiyo qudhoodu uu dhaqankii mataqaanaa kala dambaynta iyo mataqaanaa is-ixtiraamka uu ka hirgalo anigu maxamed agaasim guud ka ahaan jirin xafiiska madaxweynaha yaa joogay waxaa chief protocol iyo ahaa xirsi oo joogay wasaaradda arrimaha dibadda dabcan xafiiskayga waxaa joogay nin agaasimaha oo qaabsan protocolka oo laga soo diray wasaaradda arrimaha gudaha marka waxay ahaayeen dadka jooga xafiiska prime ministerka iyo madaxweynaha waagaas hore 4 sano hore waxay hoos imaan jireen waxay shaqaale ka ahaayeen oo mushaar siin jiray wasaaradda arrimaha dibadda waana sida sax ah adduunka dhan waa noocaas mana marka la yiraahdo protocol waxaa loo soo raasay arrimaha dibadda ayadaa maamusha safarada madaxda ama kuwa imaanaya ayadaa maamusha marka nidaamka noocaas ah in si loo soo celiyo waa aydan aad muhiim u tahay waxaa la ii sheegay inuu kulan kale caawi jiro haddana xoogaa aan dareemay dadka qaarkood inay aad u kululaadeen marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo tababar aad muhiim u ahaa protocol keliya ma ahayn oo diblomaasiyad iyo amni iyo waxyaabo kale fara badan ku jiray waxyaabahaas oo dhan aad waxay aas u yihiin mataqaana dowladnimadeena waxa waaye aqoonta adaa ku nool ayada kuuma noola marka inaad aqoonta kordhisaa mar walba aaday muhiim u tahay sida la sheegay waa bilow waxa aad barateen inaad hor u sii wadaan idinkaa laydinka rabaa waa wax idinka idinku xiran waxaana rajaynaa mataqaanaa inaad aqoontaas aad ka kororsataan waa ku faraxsanahay inaan arko garaad oo kale oo aan 6 sano ka hor kala shaqayn jira xafiisyadii waaweynaa dowladda inuu maanta halkan fadhi wax baranayo marka
أنا waxay muujinaysaa inaanay aqoontu lahayn meel looga haro andaan aysan lahayn marka waa idin soo dhaweynayaa sidoo kale adeer ma taqaan dhawaxta inuu noo sheegay Talyaani inuu noo reebay nin protocol ah waad fahmaysaa marka muhiimadda adduunyada ay ka leedahay protocolka marka wax qof fiican aad barteen ina hor u sii wadaan adinka la idinka rabaa halkan inta ku soo koobaya waxaan rabaa inta kale inaa caawa u dhigto hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaan ku wareejinayaa agaasinkii macadka iyo inay bal wixii ku xigay noo sheegaan